بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan taariikhna ladadka ciyaartooyda kubadda cagta waxaan caawa miiska noo saaran xidiga xulka Faransiiska ee kooxda Manchester United khadka dhexe kaga ciyaaray kubadda isaha Paul Pogba. war maxaad ka ogtiin xidiga qadka dhexe kaga ciyaaray xulka Faransiiska ee kooxda kubadda cagta Manchester United Paul Pogba? sheeko ayaan kaaga hayaa. isagu waa xidig awood iyo muhiimad cajiib ah Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay, waana xidig ku faana midabkiisa iyo diintiisa islaamka. Paul Pogba sheeko dhalasho, sheeko xambaarsan xaqiiqooyin sawir laga soo qaaday muslim ba magaal ba. Paul Pogba xaaskiisa nololeedkiisa xagga kasoo bilaabay kubadda cagta muxuu ahaan jiray, inta ayaa kaga bogan doonaa. haddaad ku cusub tahay janaalka waxaad saartaa subscribe, like, share gare. haddaad hore noola joogtana waxaan ku leeyahay like noo saar, noo share gare. nolosha Paul Pogba waxay kuu sheegaysaa xaqiiqooyin ku saabsan sheekadiisa carruurnimada, noloshii hore, waalidiinta, qoyska, xaaskiisa, ilmihiisa, nolosha qiimaha iyo nolosha shakhsiyeed. isku soo wada duubo, waxaan halkan ku haynaa taariikhda dhammaystiran ee ciyaaryahanka u dagaalama Faransiiska. sheekaduna waxay bilaabanaysaa maalmihiisa hore ilaa ay markuu caan ku noqday ciyaarta, si aad ugu xanuujiso rabitaankaaga. taariikh nololeedka dabeecadda soo jiidashada leh ee Paul Pogba. halkan waa soo koobi doona taariikhda Paul Pogba. qof walba wuu ogyahay Manchester United inay dib u seexatay ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer France iyadoo rikoor lacag adduun ah kaga soo qaadatay Juventus lacag gaaraya 89 milyan. tan iyo markaasi wuxuu u cadeeyay taageerayaashiisa inuu yahay mid awood badan, karti badan, hal awood badan oo isku haya goolka iyo xiisaha u muuqdo. inkasta oo abaalmarinta la siiyay, waxaan ognahay in dad badani aysan aqrinin maqal dhammaystiran oo ku saabsan nolosha Paul Pogba. waxaan u diyaariyey maqalkan cusub, Paul Pogba taariikhda carruurnimada. bilowgii taariikh nololeedka wuxuu xambaarsan yahay naaneysta lagu magacaabo Paul Pogba. wuxuu dhashay 1993 Maarso iyo Marie Pogba hooyadiisa iyo aabihiisa Fauzi Antonio Pogba oo dhalay xidigan kubadda cagta Faransiiska iyo kooxda kubadda cagta Manchester United. xidig Faransiiska waa kan ugu yar 3 caruur ay kala dhaleen Marie iyo Antonio Pogba. waxaa la dhashay 2 wiil oo ka weyn oo lagu magacaabo Fauzi iyo Pogba, Mathias Pogba. ka hor dhalashadiisa iyo Marie iyo Fauzi Antonio waxay yeesheen 2 mataano oo lagu kala magacaabo Florentine Pogba iyo Mathias Pogba, kuwaasoo walaalo u ah Paul Pogba. wiilasha aad bay u yaraayeen waqtiga hooyadood ay u safartay dibadda si ay ugu biirto Fauzi Antonio aabahooda oo hore ugu noolaa Faransiiska. waqtigaasi waxay ku sii nagaadeen Conakry oo Ghana ku taalo waddanka Afrika. waxay kadib markii iyo Marie ay degeen Faransiiska, Florentine iyo Mathias waxay dib ula midoobeen waalidkooda. mataanahan oo u muuqday mugdi waxay ku faraxsanaayeen raayitaanka raaxada hooyadood, ayagoo sanado adag ku soo qaatay Ghana, galbeedka Afrika. halkan in yar oo ay boowis ah ayaa halkan lagu arkay isaga iyo hooyadiisa. labaduba waxay u muuqdeen kuwo cusub, muuqaal tilmaamaya caddeynta cimilada Faransiiska. muxuu u soo kordhay Paul Pogba? Marie waxay ku soo barbaarisay 3 wiil kaligeeda guryaha Rennes lagu magacaabo oo ku yaala Faransiiska. bilowga oo ku taalo dabaqa balkoonka 13. laga soo bilaabo cilmi baarista ma jirin wax aad u hanjabaad ah oo ku saabsan xaafadda ay degan yihiin reer Pogba. deegaanka ay ku noolaayeen waa saaxiibtinimo iyo
soo dhaweyn ay ka heleen inkasta oo rabsho ay markii vlog imaanayeen ay ka dhacday meesha. Paul Pogba taariikhda qoyska ciyaaryahanka khadka dhexe ee Faransiiska wuxuu ka yimid gurigiisa oo jaban. Paul Pogba waalidkiisa iyo Moriba iyo Jesus Antonio waxay kala tageen isagoo 2 jir ah ay isku dhaceen sanadkii markuu ahaa 96 tan iyo markaasi gurigii ugu yaraa ee ku yaala xaafadda Paris. Hooyada 3 caruur ah ayaa si kalgacayl ah ugu soo korisay 3 wiil. marka loo eego sharciyada Faransiiska ee ku saabsan furiinka iyo kala tagga, iyo Moriba waxay gaadhay heshiis nabadeed oo ogolaanaya ninkeeda inuu la xiriiro caruurta. sababtaas awgeeda Bovios wuxuu ku raaxaystay xiriir adag oo lala yeeshay aabihiisa. runtii haddii la sheego kani waa nin dhibaato u aasi shaqadiisa wiilkiisa, isagoo sharaxayay Paul inta uu yaraa. Jesus Antonio Pogba mar uu yiri markuu wiil yar ahaa, Paulus wuxuu xiiseynayay inuu wax badan ka ogaado nolosha. maskaxdiisu way furneed ama aad ay u weyneed. Paulus aqoon durugsan ayuu u lahaa maadooyinka qaarkood ee iskoolka lagu qaato. waxaan ku dhiirigeliyay inuu waxyaabo badan sameeyo oo uu raaco danihiisa oo ku sameeyay kubadda cagta. markii aan arkay Paul oo ciyaaraha kubadda cagta markii ugu horeysay, waxaan arkay in farsamadiisa ay garaacday tan iyo asxaabtiisa. Paul wuxuu ahaa 4 sano jir, wuxuuna had iyo jeer la ciyaari jiray wiilal waaweyn oo isaga ka weyn. Paul Pogba qoyska asalka inkasta uu ku dhashay kuna soo barbaaray Faransiiska, haddana ciyaaryahanka kubadda cagta waa asal ahaan Afrika ayuu ka soo jeedaa. Paul Pogba wuxuu ka soo jeedaa qoyska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, wadanka hooyadiisa, iyo Guinea oo ah dal xeebeedka ku yaala galbeedka Afrika oo aabihiis ka yimaado. Guinea waxay mararka qaarkood loo yaqaanaa Guinea Conakry si loogu sooco Guinea Bissau iyo Equatorial Guinea oo leh magace isku khilaafsan. ka hor inuu uusan Paul Pogba dhalin, Guinea ayuu ku barbaaray. Paul Pogba iyo waxbarashadiisa si waalidiin badan oo ay ka tirsan guryaha Ronaldo iyo Moriba waxay mar sii horeysay fikrad u heshay inay caruurteeda wax ku bartaan. cilmi baaris ayaa sheegaya in Paul Pogba da'da 6 uu ku qaatay waxbarasho rasmi ah, halkaas uu ku ahaa arday. Paul Pogba sheekada kubadda cagta laga soo bilaabo maalmihii hore ilaa ay magaca ilmo ahaan dhammaan 3 walaalo waxay noqdeen kuwo la qabsanayay ciyaarta kubadda cagta. Paul Pogba nolosha shaqada hore markuu jiray 6 sano da'yarta, wuxuu tijaabo guul ah kula qaatay Razai akademiyada yar oo ku yaala 20 daqiiqo u jirta gurigiisa. Paul Pogba ayaa xirfadiisa ku sharfay 7 xilli ciyaareed kooxda ka hor inta ay uusan gaarin nasashadiisa ugu horeysay ee weyn. kadib markii uu saameyn weyn ku yeeshay akademiyada ayaa soo dalbadeen kooxo waaweyn. Celta de Vigo iyo Le Havre waxay ugu baqayeen walaalaha Pogba. noqoshada Le Havre kaftanka fantastika ah ee kibirka dhalinyarada Faransiiska. daayarta ayuu kaftan u soo noqday ee Faransiiska Paul Pogba. wadada loo maro sheekada dagaalkii u dhaxeeyay Le Havre iyo Manchester United. Manchester United ayaa soo galatay akademiyada ku darsatay intuu joogay waxay u dirtay Juventus. kadib ayaa waxay kula soo seexatay rikoor lacageed gaaraya 89 milyan. sheekada guusha Talyaaniga dhexdiisa, Pogba si weyn ayuu u kabcay. wuxuu sare u qaaday ciyaartiisa heer kale oo uu ugu mahadcelinayo helitaanka waqti ciyaareed ee joogto ah ee ay had iyo jeer u jeclaa inta uu joogay Turin. iskaashiga aadka u xun ee lala yeeshay Marquisio iyo Vidal ayaa ka caawiyay Juve inay ku guuleystaan 4 horyaal oo isku xiga oo Serie A ah, 2 Italian Super Cups iyo 2 Coppa Italia.
xiddigan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United kula guuleystay Europa League sanadkii 2018 sidoo kale xiddigan ayaa xulka Faransiiska kula guuleystay 2018 World Cup-ka xaaska Paul Pogba Marin Salas ayuu qabaa waxa u dhaxdo haweeney lagu magacaabo Marin Salas waxay guursadeen 94 ayaga oo yacni iska dhaleen laba caruur oo lagu kala magacaabo Ahmed Pogba iyo Cabdishakuur Pogba ayuu dhalay labadaas wiil aragtida Paul Pogba ee wiilka Libere Shakuur la cunugiisa ugu yar ee Cabdishakuur rabitaanka uu u qabo wiilkiisa waa mid fudud markii hore waa in laga dhiga in uu helo nolol wanaagsan aad ayuu u jecel wiilkiisa Cabdishakuur Pogba la yiraahdo wuuna kalkooliyaa Paul Pogba waa cunugiisa ugu yar ee Cabdishakuur Pogba Paul Pogba xiriiradii hore Paul Pogba wuxuu xiriir la soo yeeshay 3 gabdhood ay isfahmi waayeen ku kala tageen nolosha balse Marina ayuu hadda Salis ayuu qabaa oo nolosha la wadaaga waxayna u dhashay wiil yar oo lagu magacaabo Cabdishakuur Pogba Paul Pogba xaqiiqaynka nolosha shakhsiyeed Paul Pogba wuxuu jecel yahay inuu mar walba waqti ku qaato xeebaha wuxuu jecel yahay inuu cuntada asaga karsado Paul Pogba sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu timaha jarto inuu timaha nooc walba u jarto waa nin timaha aad iyo aad ugu ciyaaro wuxuuna barayaa Paul Pogba wuxuuna baray inuu timaha ku dhedheelo si uu rabana u jarto xiddigan ayaa aad u jecel inuu jarmooyinka oo ah in yacni aamoodo madaxiisa beer la falay oo kaleeto ayuu jarmadaas jecel yahay meel ayuu ka howlaa ka fiiqaa madaxiisa waana wax dhalinyarada Soomaaliyeed ee maalmahan u badan yihiin xiddiga Paul Pogba oo ay ka keeneen Paul Pogba ayaa jecel kubadda golfka ee gacanta lagu ciyaaro ayuu jecel yahay waqtigiisa nasashada wuxuu ciyaaraa kubaddaasi ee golfka taariikhda Paul Pogba si had iyo jeer laguna niiso waxaa lagu naasaa Lebele Pogba wuxuuna ka soo bilaabay noloshiisa akademi guri agtiisa ku yaalay wuxuu imaaday akademiyada Manchester United dib ayaa loo diray oo Juventus la geeyay Juventus 3 sano ku qaatay dib u soo ceshatay goor gaar ah lacag aad u sareysan Paul Pogba noloshiisa muslim baa miswagaal Paul Pogba wuxuu haystaa diinta islaamka ee muslimka ah wuxuuna soo xajiyay wax ka badan 4 mar ayuu soo xajiyay Paul Pogba waa nin muslim kuna faano diintiisa islaamka mar lagu wareysanaayay in ay ku soo barbaareen diinta islaamka inagu waxayna ku soo barbaarnay diinta islaamku waa nabad waa peace waa farxad waa raaxo aad baan u jeclay diinta islaamkana agteeda ligama maro waxayna halkaas ku soo gabagabeynay taariikhda kubadda cagta xiddiga xulka Faransiiska qadka dhexe ee kubad abuuraha Manchester United Paul Pogba waxaan idin leeyahay nabadgelyo haddaa hore noola joogto subscribe saar haddaa ku cusub tahay soo dhawow oo meesha guduudka cadaan nooga dhig subscribe noo saar like saar saar waxaa saartaa subscribe ku saar like saar share gare haddaa nala joogto like saar share gare maxsalaam waa aniga oo walaal boos waxaan idin leeyahay kulanti dambo heesle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.